maalmihii ugu dambeeyey wajeer iyo baraha bulshada ee Soomaalidu waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa waxa uu ahaa tiro aad u badan oo la sheegay in ay yihiin gabdho uur leh oo ku nool dhammaantood wajeer. haddaba gabadhii hadalkaas iyada ah ugu horreyntii uu ka soo yeeray oo ahayd mid u ololeyso xuquuqda bulshada rayidka ah ayaa ugu dambeyn hadashay, waxaana ay faahfaahisay hadalka sida ay u tiri iyo qaabka loo qaatay isla markaasina dhinac kale loogu rogay. goobta ay ku faahfaahinaysay hadalkii hore uga soo yeeray waxaa ku wehelinayay qaar ka mid ah culimada. waan ka hadlay arrintaas sayto dadka hadlay ayaan ku jiri waliba dadka u yar horeeyaan ku jira uma leeyna haddaan xasuusto. horta mid waxaan rabaa inaan saxa beesh ida fadhigeed walax laga soo fikiray oo la sii qoray ma ahayn. warka anaa ka hadlay Faadimo Yuusuf waxaana sheegay 6,000 oo gabdhood inay uur leeyihiin. markaas clipka gadaal u fiirsan runtii gadaal baan u arkay aniga horaan markii hadlayay ma fahmin kulay horta xanuunka iga batay sababta muddo hadda waxaan la shaqeynaa bulshada raayidka anoo mushaar ku qaadanayn. warkaasna waxaan rabaa inaan cadeeyo Faadimo jixo may sheegin wax sheeg anaga ahaa markaan sheegayna kama wadin 6,000 oo gabdhood ayaa maanta uur kale laakiin marka clipka fiirisa saasaan ku celceliyay waxaan rabaa taasayt inaan ka qeyroodo aan sabeen ka xiro. magacayda waa xasan axmed xuseen waxaan joognaa xafiiska culimada a'immatul masaajid waa ducaad ayaan joognaa. waxaana la jooga gabadhii Faadimo Yuusuf ahayd oo dhaar hore hadalka oo ka dhacay ahaa macnaha dadka magaalada wajeer jooga macnaha gabdho ku saabsan macnaha hadal ay dhahday khayr Allah siiyo yaa nala joogtoon u yeerin haddii aan ahay culimada wajeer. waan wareysanay arrintaas gabadhay wixii macnaha ku kalifay way noo warantay wax fara badan ay noo sheegtay dhibaatooyin inay ka jiraan magaalada noocaas oo aad u dhib badan. wax fara badan ay noo sheegtay xanuun inuu ka keeno dhib fara badan magaalada ka jira. gabadhan waxay ka shaqeysaa waxay macnaha ku lug leedahay ka shaqeysaa macnaha human right ay la shaqeysaa khayr Allah siiyo ama dadka bulshada u doodaa oo macnaha dhibaatooyinka magaalada ka jira dadka ay ka soo dhacaan macnaha ay kamid tahay. marka wixii ayada ku kalifay arrintaas ee noo sheegtay gabarta waan wareysanay waxayna noo sheegtay arrintaas in carafkeeda qalad ugu dhacay ay noo sheegtay oo kala jooday waxyaalo fara badan oo kamid yihiin wiilasha yar yar oo liwaadka lagu sameeyay ay kamid tahay gabdhaha yar ay kamid tahay gabdhaha waxaan isku waxayna ay kamid tahay naagaha garoobka oo soo dacwoona oo nimankooda fur ilmaan biil ku sidayna ay kamid tahay raqam ama lambar saas ugu qornay calool xanuun ay ka qabtay wajeer dadkiisa dhalinyarada wiil iyo gabarba caasinimada ka socoto yaad afkeeda ugu sibqaday saas ay noo cadayso ay noo sheegtay sabaynayna ka xirtay wayna ka noqotay dadweynahana way raali gelisay Soomaalina waa raali gelisay reer wajeerna waa raali gelisay culimadana waa raali gelisay rabbigeedana waa raali gelisay.